السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتيم كالديق فوليشن جروب فرع مقالة مقدشو وأن كسو بوقني هويو فاضمو ووضع تقانين هويو فاضمو أو هيسته سقال عرورة أو أغونة إن كنا نول كامكا إن أو بالة كنول إن هويو فاضمو وذا أكتهم بين إن أضجي عرورتان إن كدلي إنه يحاس قاضي إن هو فاضمة وأن مانتي فدقي ذو أقول نمت أنا قا بعض الرجال الدق فوليشن جروب أو مروا البخير كي وناقة وتاجن إن هو فاضمة وأن جعل السنة الدق أي سودي بين ولا لها إن أهل الخير كأي مروا البجعل إن خير كي وناقة كقيب قاتان ولا لها سو كنا الوطن كإسويسرلان وجعل السن إن هو فاضمة inay deeqdan lacageed ay soo gaarsiiyaan deeqdan lacageed waxa ku soo kala dhiibay saan u qabo $70 waxa ku soo dhiibtay Xusniyo Maxamed waa $70 Soomaa halkana waa $100 oo ay ku kala soo dhiibeen hooyo Faadumo Xaaji iyo hooyo Cabdiyo macallin ayaa ku soo kala dhiibay konton iyo konton hooyo Faadumo Xaaji waxay ballan qaaday inay bil walbo ay ku kafaalo qaaday inay ku siiso $30 bil walbo ma sha Allah maxaad ugu duceynaysaa walaalahaas muxsanaadka ah ee khayrkii wanaaga jecel ee jecelaystay inay ku soo garb istaagaan intuu ilaahay muraadkooda saaro oo khayrka ilaahay soo geliyo walaalahay duceys waxa uu dagaantii ilaahay muraadkooda saaro oo anina intuu ilaahay waxaan ilaahay ugu koriyo oo ilaahay la caawiyo ilmaha masaakiinta walaalahay ugu soo dhiibay intuu ilaahay muraadkooda sahal oo duceeyo walaashay Faadumo ma sha Allah aamin ayaan leeyahay dadka walaalaha muxsanaadka ee muuqaalkaagan daawan doona maxaad baaq u jeedinaysaa adigoo ka hadlaya marxaladda dhabta ah ee aad ku nooshahay maxaad baaq u jeedinaysaa intuu ilaahay khayr ka soo geliyo oo ilaahay uu faataxda ugu maro intii isiin oo taasii okay maxaad ka codsanaysaa xaaladaada dhibaato adigoo duruufta ku haysa awgeed codsanaya in laga soo garb istaago waxa ilaahay soo daba gaaro oo ilaahay wixii u soo awood oo isiyaana ku codsanaa waad arkaysaan walaalayaal muuqaalkan oo caruurtan agoonta ah ee maanta aan deeq waxbarasho iyo fursado kala ayna intaba ayna awoodin waad arkaysaan hooyigooda laftigooda waad u jeedaan magacaaga oo saddexan Faadumo Cabdiqaadir Aadan lambarkaagana furaas 9 mar labaad ku soo celi furaas 9 ma sha Allah saad u wada jeedaanba waad arkaysaan hooyo Faadumo xaaladda ay ku sugan tahay caruurtii 9 caruurana waa kuwan ay ku hareereysan yihiin qof walba oo muslim ah oo jecel khayrkii wanaaga inuu ka qayb qaato halkaas ayaa hooy u ah qof allaala iyo qofkii jecel inuu ka qayb qaato xasanaadkan aadka u weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhawaanayo waxaan jeclaan lahaa inay kala soo xiriiraan lambarkeeda shaashada ayaan soo saari doonaa waa teamka Aldeq Foundation Group oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.